xubnaha mucaaradka ayaa 67 xubnood cabasho ka keenay guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo waliba heer dowlad goboleed ee la soo gudbiyay 34 kamid ayaa la shaandheeyay oo guud ahaanba laga saaray kaas oo qaar kamid ah hogaamiyaasha maamul goboleedyadu xubno ay ku lahaayeen oo loo xil saaray dowlad goboleedka Galmudug ayaa noqonaya maamulkii ugu dambeeyay ee soo gudbiyay waa maamulkii ugu dambeeyay soo gudbin bedelka xubnaha guddiga doorashada ee cabashada laga muujiyay iyadoo hore ay soo gudbiyeen afarta dowlad goboleed ee kale xubnaha loo celiyay ee cabashada laga keenay sida risaalo uu sheegay xubno kamid ah madaxtooyada Galmudug madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa xalay ilaa maanta la filayaa inuu soo gudbiyo liiskan asagoo wada tashadii ugu dambeeyay bedelka xubnaha Galmudug kaga soo aaday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayuu u gudbin doonaa xubnaha laga sugayo kuwaas oo gaaraya 5 xubnood oo Galmudug laga sugayo inay soo bedesho oo dhaliil xoogan loo soo jeediyay xubnihii hore ee guddiga doorashada Galmudug ugu matalayay xubnaha Qoorqoor u gudbinaya ra'iisul wasaaraha ayaa noqonaya bedelka xubnihii cabashada laga keenay ee ku jira guddiga doorashada ee labada heer ka kooban ee federaalka iyo waliba sidoo kale waa xalinta iyo sidoo kale kan Galmudug ka imaaday magacaabista madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo sameynaya ayaana meesha ka saari doonta daahin dheeraad ah ku yimaada hanaanka doorashada sida risaalo uu sheegay saraakiil ku dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha waabadiiba madaxweyne Qoorqoor maanta uu soo gudbiyo liiskan oo loo gudbinayo ra'iisul wasaaraha ayaana wareegto rasmi ah kusoo magacaabi doona guddiga doorashada heer dowlad goboleed waliba heer federaal oo hooshooda ugu horeeyana ay bilaaban doonto xareynta iyo seminaaro loo furo tababaro la siiyo guddiga doorashooyinka oo u muuqanaya kuwa dhalinyaro ah si loo baro maareynta howsha ay qabanayaan doorashada xildhibaanada waxayna imaanaysaa arrintan kadib markii ra'iisul wasaare Roble cadaadis xoogan uu kala kulmayo wakiilada beesha caalamka si cadna loogu sheegay in dhaqaalaha beesha caalamka aysan heli doonin waa haddii doorashadu ay ka dib marto bisha Agoosto oo lagu ballamay in doorashada xildhibaanadu ay bilaabato sidaan xogaha qaaskan ku helnay.